waxaan ugu horeen ku faraxsanahay niyadeydu toddobaadkii hore say ahayd iyo maanta say tahay farqi weyn oo dhaxeeyo farxadda hadda aan maanta dareemayo alla ka sokow waxa isiiyay oo idareensiiyay inaan garab haysto waa hooyooyinka Soomaaliyeed khayr far badan Allah siiyo meel walba ay joogaan qaasatan hooyooyinka qurbaha ku dhaqan ayaa runtii waxay isiiyeen muxuu ahaa ishak rajo ku aadan inaan ka dhabeeyo riyadeedu ku aadanayd bismillaahir rahmaanir rahiim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samii'ul 'aliim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bulshada Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan muuqaalkii ugu dambeeyay ee aan soo galiyay barteeda TikTok iyo YouTube-ka ee aan idin kula wadaagay arimihii aabba iyo xaaladda iyo halka ay marayso runtii waan idin raali gelinayaa dad badan ayuu muuqaalka calool xumo iyo murugo ku reebay sidaas oo ay tahayna waxaan rabaa maanta muuqaalka horta maxaa ka dhashay arimo badan ayaan rabaa inaan bal muuqaalkan xoogaa ku gorfeeyo inaan xoogaa stresski qayb ka mid ah inaan iska bixiyo hase ahaatee waxa ugu muhiimsan in maanta aan aad u faraxsanahay alxamdulillah waxaan ugu horeen ku faraxsanahay niyadeydu toddobaadkii hore say ahayd iyo maanta say tahay farqi weyn oo dhaxeeyo waayo waxaan dareemayaa horta ugu horeyn Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh in aabe uu xoogaa ka soo reynayo muuqaal ahaan iyo caafimaad ahaan maskaxda xoogaa inay soo laabanayso xusuustiisa isla markaana caafimaadkiisa jirkiisa uu soo kabanayo anigoo kaashanayo quraanka iyo adkaarta talooyin badan oo walaalo Soomaaliyeed ay siiyeen stebiski raacayo ayaan hadda dareemayaa ما شاء الله isbedel xoogan ayaan dareemayaa taana Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan runtii waa dareemi kartaan adigoo muxuu ahaa ii sheeg saaxiibo badan iyo bulshada inteeda badan muxuu ahaa ii sheeg qof saaxiibo badan leh markii xaalad intuu galo oo dhinacan fiiriyo kii fadhiyo uu waayo kii dhinacan ka jira uu waayo dadkii oo dhan uu waayo xanuunka uu dareemi karo saasoo ay tahay Ilaahay muxuu iigu bedelay in muxuu ahaa ii sheeg aan helo dad dar Ilaahay ii garab taagan waxa jirtay in marka laga hadlayo baraha bulshada YouTube-ka Facebook-ga iyo TikTok-ga laakiin waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo bulshada Soomaaliyeed in Facebook-ga iyo YouTube-ka ay joogaan hooyooyin khayr jecel hooyooyinka ayaa maanta farxad geliyay waxa jiray wixii ka dambeeyay muuqaalka in ay taleefanadu iska soo diba dhacayeen oo hooyooyinka ay soo wacayeen muxuu ahaa ii sheeg ee ileeyihiin Cabduqaadir erayadoodii xitaa waan xifdiyay hooyo walba ay soo wacdaahay waxay leedahay Cabduqaadir aabba Allah ku caafiyo waxa tahay qof duceysan jannad shaqaysanaysa muxuu ahaa ii sheeg wiilkeygii dadaal baa wadaa annaguna garabkaagan taaganahay contributionkii aabba way soo dhaqaajiyeen shalay meeshuu taagnaa maanta ma joogna oo meel fiican ayaa mareena laakiin ma dhameystirna haddii hooyooyinka inta hadda ila soo xiriirtay in lamida ay ila soo xiriiri lahayd oo ay ka qayb qaadan lahaayeen maanta cid uma baahdeen cid bini aadan ah stresskeyga iyo xaaladahayga maysan ogaadeen laakiin farxadda hadda aan maanta dareemayo alla ka sokow waxa isiiyay oo idareensiiyay inaan garab haysto waa hooyooyinka Soomaaliyeed khayr far badan Allah siiyo meel walba ay joogaan qaasatan hooyooyinka qurbaha ku dhaqan ayaa runtii waxay isiiyeen muxuu ahaa ishak rajo ku aadan inaan ka dhabeeyo riyadeedu ku aadanayd inaan aabba macaan aan ku dadaalo caafimaadkiisa waxyaabaha niyad jabka iga keenayay oo aan la niyad jabsanaana runtii waxa jiray istizaa wax la dhaho jees-jeeska diinteena islaamka wax badan ay ka dayrisay dad baa jiray intay ila soo xiriiraan niyadda iga jibinayay laakiin ayagu waxay moodaan inay niyadda iga jibinayeen laakiin awoodii Allah subhanahu wa ta'ala ayay ku jees-jeesayaan qadar Allahu ma shaa facal waxay leeyihiin odagaan jiifay intaas oo sano ma kacayo ma istaagayo ma caafimaadayo maxaad isugu daalinaysaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun
ولا ليال عافماتك الله هيو حنونكنا الله هيو marka aad aragtid qof xanuunsanayo oo aad aragtid in waalidkaaga ama aabba ama hooyo ee xanuun uu soo wajaho ha u malaynin in Allah subhanahu wa ta'ala uu caafimaad u waayay bulshada ayaa lagu imtixaanayaa qoyska ayaa lagu imtixaanayaa waxa la fiirinayaa sida bal la isugu naxariisanayo wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala inoo sheegayna in muxuu ahaa janno lagu galayo waalidka hadii loo shafeeco loo naxariisto birul waalideynka dhamaanteen dad islaamaynu nahay waxa jirtay nabiyullaahi maxamed alayhi salatu wasalaam xilligii jihaadka in mid kamida muxuu ahaa sheeg ragii xilligaas uu yimid nabiga oo uu dhahay waxaan rabaa inaan ku raaco jihaadka su'aashii la weydiiyay waxay ahayd war waalid ma leedahay ha hadaba waxa lagu dhahay dib u laabo jihaadka waalidiintaada oo aad muxuu ahaa sheeg caawisid oo aad muxuu ahaa sheeg jannadaada oo ayaga waxa kale oo xitaa lagu xisaabaa waalid markuu xanuunsan yahay inaadan u baahnayn inaad xajka aadid waalidkaaga ayaa xaj ku ah anigana hiigsiga ayaan hiigsanayaa waxa aan u rafaadayo waxa aniga maanta muxuu ahaa sheeg qayrnaanta wajigayga ha qayrnaado xanuunka aabbe ma ahan waa dadaal anigu aan wado oo aan habeen iyo maalin u seexan lahaa waan faraxsanahay maanta alxamdulillah xilli xaaladuhu ay adag yihiin ayaan ka soo gudbay maanta wax yar oo kaliya ay ii dhiman yihiin farxadeedu ma qiyaasi kartaan aabahay ii soo yar roonaanayo iyo dad badan oo garabkeyga noqday ayaan maanta dareemayaa ilaah subhanahu wa ta'ala muxuu ahaa albaabkiisa ood ma saarno hadii mas'uuliyad dad badan saarnayd ay gabeen ilaah wuxuu ku siinayaa mas'uuliyadda dadkii dabooli lahaa waa aragteen maanta ragaan anaga hadda contributionka aabe anigu waaya aragnimaan ka dhaxlay marka ay leeyahay muxuu ahaa inta ila soo xiriirayso boqolkiiba 2 ayaa rag ah inta kale waa gabdho iyo hooyooyin خير فربنا الله سيء أولاد باري الله يدين كقديه هو حاجة عشين الله يدين شيء هرمودك بسنس يدا جناع سجا وحكستو أو دقدقاقة ما أنت رجع هيو حدنا مركل دو contribution مركل دو قف حنوسن أيا العاون يا هو ينكي يتاجن أولي بقى يجا أنت بدن عرورتي مسؤولية دي قيسك أي دوش كسارنتها بالكودي أي أنت قيب كبحيان ay aaqiradooda u hormarsadaan waalidiintoodana muxuu ay sheeg ay ka duca qaataan hadii ay geeriyoodeen sadaqada ay baxsadeen ayaa waalidiintooda Allah u naxariistada iyo waalidiintooda inay wax u hormariyaan ubadki ay dhaleenna inay baari u noqdaan ay wax u hormarsanayaan alxamdulillah ma sha Allah haasha lillah sidaas oo ay tahay hadii ka warama rag Soomaaliyeed ee Ilaahay uu wax siiyay haday noqon lahayd ganacsiga iyo dhan walba ayaga gacanta ku hayo haday dhihi lahaayeen bal maxaa noo diiday hooyooyinka Soomaaliyeed waxa ay arkaan oo ay raadinayaan anaga maxaa noo diiday haday dhahaan oo ay ku soo biiraan isku kaalmeynta wa taawanu ala albirri ilaahay wuxuu yiri dhulka isugu naxariista anigana samada ayaan idinkaga soo naxariisanaya ani waxaan rabaa walaalayaal tusaale inaan noqdo waayo maxaan tusaale ugu noqonayaa aaba Soomaaliyeed oo la dhahay ma kacay ma caafimaadayo ayaan habeen iyo maalin waxaan u taaganahay hadiiba Allah subhanahu wa ta'ala uu caafimaad siinayo oo adduunku wax ku leeyahay laba leeyahay aakhiro iyo adduunyo qofka haduu wax ku leeyahay imtixaana maraysa waxa loogu talagalo Allah subhanahu wa ta'ala uu fiirinayaa sida aad aakhiradaada u shaqeysato sida waalidkaaga xanuunsan aad u keer gareyso ugu dadaasho oo aadan u daalin ayaa la fiirinayaa imtixaan waaye qayb kamida imtixaanka nolosha waaye ilaahay wuu awoodaa in wax alaala waxaad u baahan tahay oo hore kaasiyo wuu awoodaa saasoo tahay ilaah subhanahu wa ta'ala ima dayicin garabkeyga muxuu ay sheeg ilaah subhanahu wa ta'ala anoo kaashanayo ayaa haddana ilaahay wuxuu siiyay hooyooyin Soomaaliyeed maanta hal hooyo malihi hooyooyin badan aan leeyahay talooyinka ay bixinayaan aabo oo aan muxuu ay sheeg muddo gaaban
inta aan Nairobi ka imid oo Muqdisho imid gacanta ku hayo oo xanaaneynayo step walba oo aan qaadayo hooyo Soomaaliyeed talada qayb ku leh waxay ku leeyihiin biyaha aad aaba siinayso tahliil uga dhig quraan ku akhri cuntada aad siinayso quraan ku akhri talooyinkaas oo dhan waxa bixinaya waa hooyooyin Soomaaliyeed inta aan haysto ilaa subhanahu wa ta'ala aaba contribution kiisa ka qayb qaadatay balamaha hooyooyin badan ay sameeyeen hadii ilaa xaqiisa ay ka suuroobaan qof bini aadan oo aan u baahanahay malahan sidaas oo ay tahay macnaha cid ina u baahnayn ula jeediye mar walba waa loo baahan yahay in ay sheeg leys caawiyo cid jasiirada ma jirto وتلك الأيام نداولها بين الناس مالين أديك أسكله مالين ولا الك أسكله مالين تا أي كاج جبنتها هاي مالين تا أي حالة دكوع عكرنتها وحي أود هذا كتم بتو إن بولش سومالي الله بندقو أنا أقول لو كن اللي حد اللي هذا contribution أي شيء هذا حال اللي أبيس وتوكسنيا واي شلي وين توكسنيا يعني توكسنيا أبى سومالي هذا حنوسن ويل Soomaaliyeed oo xanuunsan gabar Soomaaliyeed oo xanuunsan 2006 ilaa hadan contribution dad waarurinay aabahay dadkaas oo kamid yahay qayb kamid ah waliba aniga mas'uuliyada iga sii saaran inaan aaba u raadiyo deeq caafimaad inaan aaba u raadiyo contribution ki maadaama aan in mudaabaga mundeenayo TikTok oo waxaan raadinayay game la ii ciyaaro ay shig hal game oo qatar la ii soo dejiyo oo dadkii waxa iga go'ay Ilaahay baan u sheegtaa waxa aan ka maray qof hebel kala raadi waa la hadlaysaa walaalow dibkana jiro kana jiro xaaladana jirto haye oo haye yeedisha marka adigana maxaa u baahan tahay dhiig in lagu shubo maxaad u baahan tahay in lagu dhaqaaqo maxaad u baahan tahay waqtiga uu kugu yeeriyaa in sida uu dhaqsiya badan baahidaada looga jawaabo ilaaha baahida ka jawaabo ilaaha si degdeg ah wax walba u qabto laakiin jees iyo in micnaha lagu bahdilo in micnaha shaarka qabiilka ah xoqato ayaa lagu kalifayaa aniga maanta alxamdulillah hooyooyinkii ila soo xiriiray ee arintan contribution ka aaba ka qayb qaadanayo dhamaantood way ugu taageereen inaan kaarka qabiilka xoqanin Soomaalinimadan shalay ku taagnaa inaan ku sii taagnaado ilaahayna wuu igu la garab gali doonaa maalin baa dhici doonto aabo caafimaad qabo oo aan soo daaweystay inaan dalka dib ugu soo laabto dad badan oo saaxiibaday ahaa oo aad iiga agdhawaa oo ceesho milix oo micnaha aan hal weel wax ku soo wada cunnay oo maanta garbahayga faarujiyay haday isleeyihiin koronto bari markuu aabiid soo caafimaado wixii oo idin qaban jiray caawinta idin caawin jiray idin ma caawin doona haday isleeyihiin taa waxaan ka shaafinayaa anigu shalay alla dartiisa wax walba u sameynay maantana marka aan soo laabto muraadkayga aan gaaro si aan hadafka nolosha aan ka leeyahay aan u gaaro waxaan diyaar u ahay inaan berina idin caawiyo laakiin maanto aan garab idin kaga baahnaa maanto aan idin leeyahay walaalayaal janna inaan shaqeystaa rabaa furihii jannada rabaa inaan ka faa'iideysto inaan qof duceysan oo aabihii duca ka kasbaday inaan noqdaan rabaa maanto aan idin dhahay aad caawin weyseen waxa suurtagal ah anu waxaan maraa hadda joogaa wax kasta dhici karo waxa suurtagal ah nacas intuu isa ka helo meel xun intuu isa ka dhufto anigu maanta dhimashada kama baqaayo geeridu waa xaq ii sheeg inaan shahiid ahayna waan aaminsanahay laakiin bari markii lagu dhaho koronto waa dhibkaas ku dhacay asoo aabihiisa inta TikTok soo furatid ama YouTube ka soo furatid inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto koronto nin fiican oo ahaa bari inta dhii lahayd maanta ku qurux badnayd ina garabkayga soo istaagtid maanta ku qurux badnayd inaad duca ila shaqeysato maanta ku qurux badnayd hadaan lagu dhihin walaalo $100 aan kaaga baahanahay contribution ka aabe hadaan ayaga min $100 inta aniga aan saaxiibada ahaa oo walaalaha ahayn oo aan ceesho milix ahayn hadaan min $100 ku qoro aniga aabe intee daaweysan dad kale oo xanuunsan ayaan ku caawin karaa lacagtaas siyaasiyiinta Soomaaliyeed inaad u naxariisataan bulshadiina in xaaladaha qaarkood ee isku cakiran inaad bal wax aad ka qabataan mas'uuliyad idin saaran qayb kamid ah waa kuwa siyaasadda loogu talagalay in arrimaha siyaasadda ay xoog saaraan ma ahana kuwa arrimo bulsho loogu talagalay jiro aniga aabahay kama hadlaayo arinta aabahay ilaa subhanahu wa ta'ala ayaan sheeg u wakiishay xilligu soo fududeynayo meesha uu iga siinayo waxaas oo dhan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku shaqale laakiinse dadka kale ee dhiban
anigii maanta wariyaha ah ee hadlayay bulshada badan lahaa hareerahayga taagnaayeen maanta haddii la faarujiyey maxaad u malayn kartaa qofka walaalka ah ee Soomaaliyeed ee danta iyo duruufta la daalaa dhacay ee aanan haysanin qof garab siiyo ee qof caawi aanan haysan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dadkaas waaye waxa maanta aan u qaylinayo taana hooyooyinka Soomaaliyeed ma aha waxa aan ku dhaliilayo ee ragga Soomaaliyeed aan ku dhaliilaya meel walba ragga Soomaaliyeed ayaa maanta ka horeeyo hooyooyinka sidaas oo ay tahay fursadda in muxuu ahaa ii sheeg ee dadka caawiyaan way idinku liidataa ragow aniga ma ahani bulshada Soomaaliyeed ee garabka u baahan ee tabaalaysan ee caawinaada u baahan haddaad u gargaartaan ilaahay buu idin gargaarayaa ha ku sii daynina hooyooyinka way ka tan badanaysaa arrimaha qaarkood way ka awood badan tahay awoodooda laakiin haddaad dhahdaan hooyooyinka ku filan hooyooyinkiina aysan awoodin taan runtii saameynteeda leedahay hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan leeyahay caruurtiina baariyaal Allah idinkaga dhigo inta aad dadaaleysaan ee aad muxuu ahaa ii sheeg bulshada Soomaaliyeed heerka baahidooda ay gaarsiisantaa aan ognahay heerka dhibaatada ay jirta ay gaarsiisantaa aan ognahay haddana waxaad mar walba aad isku daydaan inaad baahiyahaas oo dhan dabooshaan wayna idinka tan weyn tahay wax badan oo aad sadaqaysataan Allah idin siiyo aniga muuqaalkan waxaan ugu talagalay inaan idinkula wadaago farxad ku aadan in hooyooyinka Soomaaliyeed ay yihiin dadka khayrka jecel ahlu khayrka ah wanaaga jecel mudnaantooda inaan siiyo oo ku amaano ayaan horta muuqaalkan ugu talagalay ragga Soomaaliyeedna inaan fadhiga ka soo kiciyo dhaliisha aniga tayda kaliya ma ahani dad badan oo dhibana jiro hoos aan isku fiirino dib aan isugu laabano inta ayaan ugu talagalay inaan idinku update gareeyo waan soo fadhiisan doonaa arrimaha qaarkood way aragnimada aan ka dhaxlo waan idin la wadaagi doonaa waxaan rabaa inaan noqdo tusaale oo aan u noqdo dhalinyarada Soomaaliyeed sidii waalidiinta baari loogu noqon lahaa walaalayaal aan ku dadaalno waalidka inaan duca maanta oo aan noolnahay caafimaad qabno inaan waalidiinta duca ka kasbano bari awlaadeena ubadkeena ayaa wixii maanta aan waalidkeena u sameynano sameynay aan qaadana talooyinka saxda ah waalidiinta xanuunsan Allah inoo wada caafiyo meel walba ay joogaan waalidiinta Allah barakeeyo macnaha waalidiinta marka la dhahay hooyo iyo aabbo waay hooyo iyo aabbo marka la dhaho hooyadii hadday ka damqanayso qof kale oo xanuunsan ama aabbo ama hooyo xanuunsan hadda marka hooyo hadday xanuunsato hooyo u taagan aabbo hadduu xanuunsado aabbo u taagan aw aabbo muxuu ahaa ii sheeg kaalintaadii way banaan tahay kaalintaada soo buuxi tayda maahan aniga afayeenan ahay bulshada Soomaaliyeed waligii u hadli jiray maanta aan u hadlaya kaalintiina walaalayaal soo buuxiya sida ay nabadgeliyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh